xiisad daran oo ka dhalatay dad muhaajiriin magangelyadoon ah ayaa ka taagan xadka ay wadaagaan dalalka Poland iyo Belarus. Now EU leaders have threatened further action against Belarus. مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع تركيا ayaa bilaabay inay joojiyaan muhaajiriinta u duulaya Belarus qaar ka mid ah iyadoo halkaas imika ay ku sugayeen kumanaan kun oo muhaajiriin ah. xiisadan muhaajiriintu waxay saameyn ku yeelatay oo khilaaf iyo xurguf siyaasadeed ka dhex abuurtay dhowr dhinac oo kala duwan. Poland, midowga Yurub iyo dalalka reer galbeedka oo garab ah, iyo Belarus, Ruushka iyo kooxaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay oo garab kale ah. Haddaba, maxaa ka socda xuduudda Poland iyo Belarus? Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta oo aynu ku lafaguri doonno xiisadda maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaysa ee ka taagan xuduudda u dhaxaysa Poland iyo Belarus. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. 23 bishii shanaad ee aynu soo dhaafnay, diyaarad rakaab oo ka soo kacday dalka Greega kuna wajahnay dalka Lithuania ayay diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Belarus ku khasabtay inay caga dhigato magaalada Minsk oo ah caasimadda dalka Belarus. Belarus ayaa ku andacotay in sababta ay diyaaradan u dejisay ay ahayd inay soo gaartay digniin sheegaysa inay bambo ku xiran tahay diyaaradda, laakiin xaqiiqdu sidaasi way ka fogeyd oo sirdoonka Belarus waxay ka dhex qafaasheen diyaaradda saxafi da'yar oo mucaarad ku ahaa xukuumadda dalkaasi oo la oran jiray Roman Protasevich. dhacdadan ayaa amakaag iyo layaab ku noqotay midowga Yurub oo diyaarad laga leeyahay dal xubin ka ah midowgaasi kana soo kiciintintay dal ka mida Yurub kuna wajahnayd isla dal ka mida midowga Yurub. tacaddi ka fog dhammaan qawaaniinta dawliga ah lagu geystay dalka Belarusiya, waxayna Yurub iyadoo si dhaqso ah uga jawaabaysa dhacdadan horaantii bishii lixaad cunaqabatayno darsin ah iyo xayiraado ku soo rogtay dalka Belarusiya. Belarusiyana waxay ugu jawaabtay in kumanaan tahriibayaal ah ay ku soo daadgurayso xuduudda ay la wadaagto dalka Poland oo ka mid ah midowga Yurub. ugu yaraan kumanaan qof oo tahriibayaal ah ayaa ku xayiran xadka labadan dal, iyaga oo halkaasina ku wajahaya xaalado bini'aadantinimo oo aad u daran, uguna horayso hoy la'aan iyo qabow daran. muuqaal laga soo duubay xadka ay muhaajiriintu ku sugan yihiin ayaa muujinaya dad badan oo ku sugan xadka siligu uu ku hareeraysan yahay ee ay wadaagaan Poland iyo Belarusiya. qaarkood waxay isku dayayaan inay xoog ku maraan iyaga oo adeegsanaya qalab ka waxgooya, halka ilaalada xuduudda Poland ay ku celinayaan tahriibayaasha wax u muuqda sunta dadka ka ilmaysiisa. qaar badan oo ka mid ah tahriibayaasha ayaa ah rag dhalinyaro ah, balse waxaan iyaguna ka marnayn dumar iyo carruurba. badankood oo kuwa ka yimid bariga dhexe iyo qaaradda Aasiya waxa ay degan yihiin teendhooyin ku yaala gudaha Belarusiya, iyaga oo ku xaniban inta u dhaxaysa sohdinta labadan dal. waxay u dhaxeeyaan ilaalada Poland oo dhinac ah kana hortaagan inay dalkooda soo galaan, iyo ilaalada Belarusiyaanka ah oo ka celinaya inay dadkan dalkooda dib ugu soo laabtaan, maadaama ay Belarus ahayd halkii ay markii hore ka soo tallaabeen muhaajiriintan. ra'iisul wasaaraha Poland isaga oo ka hadlaya talaadadii aynu soo dhaafnay kulan degdeg ah oo ay yeesheen baarlamaanka dalkiisu kadib markii uu booqday ciidamadiisa ku sugan xuduudda, wuxuu ku eedeeyay madaxda Ruushka iyo Belarus inay isku dayayaan inay khalkhalgeliyaan ammaanka dalalka midowga Yurub. wuxuu yidhi labada dalba waxay ka midaysan yihiin hagardaaminta midowga Yurub, iyaga oo u oggolaanaya muhaajiriinta inay ku safraan Belarusiya oo ay si sharci darro ah ku soo galaan dalalka midowga Yurub. ra'iisul wasaaraha Poland waxa uu xaaladdan ku tilmaamay nooc cusub oo dagaal ah oo dadkan duruufaysan lagu adeegsanayo sida gaashaan dagaal oo kale, iyada oo lagu soo gabanayo xaaladooda bini'aadantinimo. wuxuu kale oo uu sheegay inay Poland ay la tacaalayso ciyaar loogu talagalay in qalalaase looga dhex abuuro midowga Yurub. wuxuu intaasi ku daray inay tahay markii ugu horeysay kadib muddo 30 sano ah oo si xundulaana loogu soo qaado ammaanka xuduudaha Poland. Poland ayaa ciidamo dheeraad ah geysay xadka ay muhaajiriintu ku xaniban yihiin, waxayna ka digtay suurtagalnimada kooxo hubaysan oo kaga imaan kara
Belarusiya iyadoona weliba si daran u muujisay baqdinta ay arrintaasi ka qabto. sidoo kale waddamada Poland, Lithuania iyo Latvia oo dhammaantood ka wada tirsan midowga Yurub ayaa bilihii la soo dhaafay waxa aad ugu soo badanayay dadka isku dayaya inay hab magangeliyo doon ahaana ku soo galaan dalalkooda iyagoo weliba ay uga imaanayaan dadkaasi xuduudaha ay la wadaagaan Belarusiya. Talaadadii aynu soo dhaafnay, Lithuania waxay ku dhawaaqday inay xaalad degdeg ah ku soo rogi doonto xuduudeeda ay la wadaagto Belarusiya. dhanka kale Poland waxay aragtay muddo dheer kadib dadkii ugu badnaa oo muhaajiriin ah oo ka soo gala xuduudaheeda, gaar ahaanna agagaarka xuduudkeeda weyn ee Koznica. Poland ayaa lagu eedeeyey inay gadaal ka riixayso go'doominaysana muhaajiriinta ka soo tallaabaysa xadka Belarusiya, taasoo ka soo horjeeda xeerarka caalamiga ah ee magangelyada muhaajiriinta. sidoo kale suxufiyiinta iyo hay-adaha samafalka ayaa laga mamnuucay inay tagaan goobtaasi. midowga Yurub, NATO iyo Maraykanka ayaa dhammaantood ku eedeeyey Belarusiya inay isku dubaridayso qulqulka muhaajiriinta. Komishanka Yurub ayaa ku eedeeyey Mr. Lukashenko inuu tahriibayaasha ku soo jiitay ballanqaad been ah oo ah inay si fudud ku geli doonaan gudaha dalalka midowga Yurub, waxayna yiraahdeen taasi waa qaab ka baxsan qaababka bini'aadantinimada, waana qaabka ay burcadu u dhaqmaan. sidoo kale Brussels ayaa iyaduna sheegtay in Lukashenko ficiladiisu ay yihiin kuwo argoosiya oo ka dhan ah cunaqabataynta uu ku soo rogay midowga Yurub. cunaqabatayntaasi oo lagu soo rogay kadib markii si weyn looga xumaaday dhacdadii aynu soo sheegnay, iyo sidoo kale doorasho ka dhacday dalkaasi oo uu mar kale ku soo noqday madaxweynaha dalkaasi, iyo cadaadiskii xigay ee ka dhanka ahaa dibadbaxayaal waaweyn oo ka dhacay dalkaasi. sidoo kale inta badan dalalka reer galbeedka oo isku garab ah ayaa sheegay in muhaajiriinta loo adeegsanayo ciyaar siyaasadeed oo u dhaxaysa Belarus iyo dalalka deriska la ah ee ku jira midowga Yurub. Lithuania ayaa iyaduna sidoo kale ciidamo geysay xadka ay la wadaagto Belarusiya si ay ugu diyaar garowdo hakinta qulqulka muhaajiriinta. dowladdeedu waxay sheegtay in ku dhawaaqidda xaalad degdeg ah ay ahayd jawaab taxadar ah. dhanka kale wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Belarusiya, madaxweynaha Belarus Lukashenko wuxuu ku sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado xiisad kasta oo militari oo ka dhacda xadka, taasoo Ruushka u soo jiidi karta colaad. waxa uu sheegay inaanu ahayn nin waalan oo uu garanayo waxa la isku hayo, balse uu ka dhaga adeygay isagoo leh jilbadhigi mayno oo rabitaankiina uma adoonsamayno. wasaaradda difaaca ee Belarusiya ayaa ku eedeysay Warsaw inay jebisay heshiisyadii horey loo kala saxiixday kadib markii ay kumanaan askari ku soo daabushay xadka labada dal. Belarusiya waxay ku adkaysanaysay in dadka soo galootiga ah ay halkaasi si sharci ah ku tageen kuna imaanayaan, iyo inay keliya iyadoo u dhaqmayso sidii dal martigeliye ah. Ruushka ayaa isna dhankiisa ku ammaanay sida xilkasnimada leh ee ay xulafadiisu u maareeyeen muranka xadka, wuxuuna sheegay inuu si dhow ula socdo xaaladda. sidoo kale xaaladdan oo muddo bilo ah soo jiitamaysay ayaa abuurtay khilaaf iyo xifaaltan aan weli dhammaan. dalalka reer galbeedku intooda badani waxay farta ku gudayaan Ruushka iyo Belarus, dhibaatada jirtana iyaga ayay dhabarka u saarayaan, halka ururada xuquuqul insaanka iyo kuwa xeerarka muhaajiriintuba ay ku eedeeyeen sida arxandarrada ah ee ay Poland iyo Belarusba ula dhaqmayaan dadka muhaajiriinta ah ee ku go'doonsan meel aan lahayn jiho ay u dhaqaaqi karaan. sidoo kale waxaa xusid mudan in la soo warinayo in dadkaasi muhaajiriinta ah ay ka mid yihiin dad Soomaali ah. guud ahaanna xaaladda muhaajiriinta la isku hordagaalayo waa mid aad u daran. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maxay galabsadeen dadkan dalalkoodii uga qaxay oo uga tahriibay si ay nolol u raadsadaan? se ma mudan yihiin inay noqdaan xaabo lagu shito dagaal u dhexeeya laba dowladood, iyagana ay dhaxanta iyo qabowga darani ku dilaan xuduudda laba dal oo uusan midna dan ka lahayn? intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.